يا ميل العزيز علي فرض يا ميل العزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم وترك الفرض ما هو مستقيم يا حبيب يا حبيب يا حبيب جبت لما له عقل وفهم جبت لما له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يغم يرى هذا الجمال ولا يغم يا حبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب munaasabad lagu weyneynayo dhalashada suubanahayna nabadgelyo naxariis korkiisa aatee oo ka dhacday masjidul culuum wal adkaar wa bir waalideyn kaasoo ku yaalo xaafada Jabuuti degmada Kaaraan magaalada Muqdisho. munaasabada oo ahayd mid heerkeedu aad u sareeyo ayaa waxaa ka soo qayb galeen xer macallimiin mashaayikh aad u fara badan iyo dadweyn aad u fara badan oo ugu weyn yahay sheekheena caalimka Sheekh Nuur Cumar Absuge oo ku magac dheer Sheekh Nuur Sarfi. munaasabadan ayaa ugu horeyntii waxaa lagu daafuray aayadaha quraanka iyo amaanta suubanahayn calayhi salaatu wasalaam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. سلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوع الغامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد منح الزجاج حاجبا صلى الله مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديدا بالحسن العرنين أغناه بعيد ما بين المنكبين سبد الكفين ضخم الكراديس قليل اللحم العقيب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه. maanta waa dharaartii dhalashadii udgoonaha dhulkii cirkooda laga soo dhaweeyay ku saliya dhamaantiin. dhalin yahay wanaagsan nabigeena doorsoon waa macallinkii dhigay dhaqankii asluubte aadmigu dhadhaabtii iyo dhooqada ka saaray dhaayaha inoo furay dadkaanu isdhalan rogay oo dhagaxda caabuday dhiigana xalaashada xaanaantana dhuunyada hantidooda kala dhaca qamrigan dhiteysto sida caanaha u dhamo dheemaalkii xaqiye raxmad aan dhammaanin loo soo dhiibi weeyaani dhagarqaba ibliiskii oo dhimbilaha cadaabtiyo dhamacdii halaagaha kandhab noogu sheegee ha aamin nugu dhehe ina dhoore weeyaani
dhalin yahay wanaagsani dhubaqaadka siirada dhayal ha u malaynina lugta oo u fiirsada dhadhansada ujeedada maqla oo ku dhiirada sharci noo dhigay dhaxalkeena dahabkan haga dhaga la'aanina dhalanteed ha raacinna dhadaroobna ha moodina dhalin yahay wanaagsani nabigeena doorsoon dhabihiisa qaadno ku daysada dhammaantiin maanta waa dharaartii dhalashadii udgoonaha dhulkii cirka oo idin laga soo dhaweeyee ku sidaasay ahayd marka waxaa dhacday iska ilaalkaalayni marka rasuulka qiimahaas lahaa ilaahay rasuulkaanya ka dhigay maanta ma ahan inaan dhahno lagama sheekay karo inaan dhahno ma ahan nuguma habboona nuguma wanaagsana maxaa yeelay dadkan ahlullaahi waaye maxabba nabigatiisahay qabaan marka ilaahay maxabbada hana siiyo nabigatiisa kuwa qalbiga ilaahay ka daboolan ilaahay nama gelsho ilaahay naga ensho marka waxaa la yidhi ilaahay haddana aayaddii ka dambaysa maxuu ku yidhi lamadaas aayadood ina aladiina yaquuluuna aswaatahum cinda rasuuliillaah ulaa'ika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa lahum maqfiratun wa ajrun cadiima layidhi kuwa ma arkaysaa sawdkooda raaricihayaan aswaatahum yaquuluuna aswaatahum cinda rasuulillaah ilaahay rasuulkiisa agtiisa sawdkooda ku raaricahayaanoo hoos u dhigayaan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ulaa'ika aladiina imtaxana allahu quluubahum kuwaas waa ku ilaahay qulubtoona jarribay ilaahay litaqwaa rabbi ka cabsashadii lahaanteeda u jarribay lahum maqfiratun wa ajrun cadiim bal u fiirso qiimahay leeyihiin dadkaas rasuulka agtiisa hadalka ku hoos ugu dhigay waxaa la yidhi ajri waxay leeyihiin dembi dhaaf ajri weynin badanna waa leeyihiin qiimaha rasuulku jooga bal fiir ilaahay agtiisa qoftaan arkayn ka warna waxaas ee ma arkaysaa dhehaysa nabiga lagama sheekay kara dhehaysa la soo taagan haddee yaa ma arkaysaa iyaguna rabaan in laga sheekeeyo rabaan iyagu in laga sheekeeyo rabaaneed dadka hore inay ka sheekeeyaan rabaan simbara waxay dhigaan xaflayaal badanay dhigaan xafalaaday dhigaan nabiga inaan laga sheekayna waa leeyihiin meeshaas xaad ka qaadee marka inay nabiga necb yihiin calayhi salaatu wasalaam ninka la yidhaahdo abuu cusmaan alwaacid asigoo asigana qisadaas ka hadlaaya oo arrinkaas ka hadlaaya wuxuu dhahay ilaahay wuxuu ku sharifay nabigayna muxameda sala allahu calayhi wasalam sharafitaan oo ku sharifay asigoo marka waxyaabaha uu ku sharifay ka hadlaaya wuxuu dhahay ilaahay wuxuu caddeeyey ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy u dhahay ilaahay iyo malaa'igtiisu waxay ku sallinayaan ou dhahay nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay marka wahada atashriifu alladii sharafa allahu muxammadan sala allahu calayhi wasalama biqowlihi ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi ajmacu wa ashrafu min tashriifi aadama biamri sujuudi almalaa'ikati lahu sidaasuu leeyahay ilaahay wuxuu ku sharifay nabigayna muxameda sharifitaanka uu ku sharifay oo ah ilaahay iyo malaa'igtiisu inay ku sallinayaan nabi muxamed qiimayntaas oo ilaahay uu u yeelay nabigaynow salaadii asiga ka qayb qaatay oo malaa'igtuna ay ku sallinayso asigana uu ku sallinaayo waa ka ajmacsantahow leeyahay waana ka atamsan tahay ilaahay faridda uu faray malaa'igta inuu nabiyullaahi aadam ay u sujuudaan nabiga gadaashiisa ayaa dib loo soo celiyey oo markaa sayd cumar allaha ka raadi noqdee oo markaa salaadii jamaacadii in lagu soo celiyo masaajidda uu ka bilaabay asigoo raggana imaam u sameeyey haweenkana imaam u sameeyey markaasaa dib loo soo celiyey salaatu taraawiixdii in masjidka lagu oogo oo muslimiinta markaas ay iskugu yimaadiin rasuulkayna calayhi salaatu wasalaam naxariistiisa waxaa ka mid ah saxaabi ayaa warsado wuxuu yidhi in allaha farada calaykum alxaja markii rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi akullu caamin yaa rasuul allah
rasuulka ilaahayow ma sanad kasta ayaa nala ka rabaa xajka markaasay ku celishay nabiguna wuu ka aamusay haddana waa ku celishay sow ugu celcelinayay ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam low qultu nacam lawajaba walama stadactum haa haddaan dhihi lahay sanad kasta ayaa xajka la idinka rabi lahay mana kari lahaynina iga taga intaan idinka tegaayo dadka idinka horreeya waxaa halaajiyey su-aashoodii badideedii oo ambiyadooda ay su-aali jireen iyo khilaafka ambiyadooda ay khilaafi jireen sidaasuu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam من حد الشيطان الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا وسبحان الله ولا توسينا وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة